هذا وكيلها محاضرات يكون سعتبه هي هذا بك هذا يبه هذه أنا هذه كيلها وتاي سبحان الله هذه أنا هذا صوفر يسوي بالتعليقية وأنت صوفر يستان وهذا أنا نو بيش برينا وحنا مقال أبو طلحة وبيشكم محاضرين يقول كلمة وكذب. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله كلمة أندون يومان تأين إذن لو ذاقو وحال إلى ذا كلمة وكذب قرت الله باكلي أجل جلاله قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله باكلي سبحانه وتعالى صفات كيس أيو قوني ليهي وتلمامه سو قوني ليهي وأفعاشي سو قوني ليهي وحي كالصهر والله بالله الله سبحانه جل جلاله وحول بالله كردغي نبي آدم باكلي لا أبوري حوا مركب الله أبوري maxaan u dooranay mawduucan asaga kelinimadu waa kadeed dad aad u fara badan ayaa waxay iga soo codsadeen in aan kelimo wax ka dhaho kelimadaas ayada aan u bixinay kelinimadu waa kadeed xagga cibaadada marka laga hadlayo al-cibaada marka laga hadlayo qofka inuu keligii cibaadaysto iyo inay laba ku cibaadaystaan hatta ajirka labada fadli badan هذا جماعة نكسو تكني قفك كلي تكذا إيه قفك جماعة كتكذا وكلا أجر وكلا أجر بدين قفك بركو كلي عبادي سنة يا أيها الأحبة شيطان بالصعدة وحاول شيطان بالحاجة الداعية شيطان بعبادة أديدة لكن وحاط صورة ستا أذيقوا لما نهاجي يا أذيق أسلت شوكتان كدمنا ومتكين بمتك كلا توسيو سنة الليل مركز أسلت كتان وأرني هذه أذن بعوي وسكر الميسان عبادة ولا سكر الميسان قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى الله وحول سكر الميسان التقوى ذا يلا كعبسك نبينا صلى الله عليه وسلم وحولي الله أن حريصون نم توصي أما جبر توصي ومدول بمدك كلا توصي حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحولي كري أيقظوا صواحب الحجرات ورقبلها قولك كتير توصيها عباديستينه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراكب الشيطان قف كلي سفر حتى وشيطان نبا وحال يري كلي اسقو ميل سوده ايو halka dhaxda ka jaqal bawdiyada oo ka jabay markaas uu waqtigan jabay fiiri waa habeen meeshan ka jabay fiiri waa bawdiyada waxa waa kaliigi cid u qayliyada lama arko idan xagga cibaadada hatta marka laga eego waxa weeye kalinimadu waa kadeed xagga amniga marka laga eego meeqa waliba dadka reer galbeedka aad ugu fara badan meeqa ayaa habar kaligeed meel deganayd ayadoo soo urayso la arkay oo waa hore dhimatay hatta muslimiintana way ku dhacdaa waxa ugu badan dadka qurbaha ku nool xalayaaba qof inuu kaligii meel ku nool yahay qofku markuu kaligii meel ku nool yahay hatta amni ma dareemayo waa uu cabsanaya dariishaduhu maanta oo dhan xilaya qajaftay dhaba wuxuu isleeyahay waa lagu soo dhacay laakiin markaad calal aqal laba guri ku tagantiin laba markaad guri ku degantiin hatta amni baad dareemaysaa hatta macsida xageeda amni baad ka dareemaysaa oo qofku markuu keligii yahay shaytaan baa la soconayo oo waswaasinaya waxyaalo xun buu daawanaya waxyaalo xun buu ku mashquulaya laakiin markay laba yihiin calal aqal qofkan alla ka xishoonaynin hatta midka kale ayuu ka xishoonaya hatta iska daayeen bulshada marka laga hadlayo kelinimadu waa kadeed qofka markuu bulshada keligii ku dhex nool yahay oo iska yahay dadku waxay dhan waa miskiin kani waxa weeyaan hatta magacyada qaaraan looma doonto qofku markii keligii yahay hatta qaaraan looma doonto hatta isma daryeelo isaga laftiisa marar fara badan sariirtii uu xalay ku seexday ayadoo sidii isku laalaaban buu kala hayaa saxanku cuntada ku cunay waxa laga yaabaa nin bay igu yiri markaan saxanka cuntada ku cuno waan ka waasada inaan dhaqo marka farinjeerkan geliyaa buu sayna u qalalin ayaan sameeyaa laakiin bulshada dhaxdeeda markaad oday noqoto oo reer yeelato oo xaas yeelato waxa weeyaan bulshada dhaxdeeda wax weyn ayaad ku yeelanaysaa hatta xagga caafimaadka marka laga hadlayo kelinimadu waa kadeed waxa suuraysataan gabadh keligeed guri degan ama nin keligii guri degan oo xanuunsaday wallahi waa mid ugu daran weeye oo yaa ka warqaba oo yaa dhakhtar geynaya oo yaa qayladiisa ogaanaya oo yaa xanuunkiisa ogaanaya cid ogaanayso alla abuurtay male
حتى لمانه iyo zawaajku waa caafimaad ayaa laga helaa sidoo kale xataa nadaafada kalinimadu waa kadeed ninku markuu reer leeyahay waa ka nadaafad badan yahay markuu keligii yahay hayla gabadh marka ka soo qaado madaxii bay dhaqanaysaa waxa weey way sabaynaysaa waxa nin bay leedahay way diyaar garoobaysaa ninkuna waa sidii oo kale xataa cuntada way dadku markay keligood yihiin cunto fiican ma karsadaan dalac bilaash ay ma taqaana ayay maxaa la yiraahdaa ikan walaaqdaan laakiin dadku markii ay lamaana yihiin oo meel degan yihiin xataa caafimaadkooda cunto fiican bay cunaan kalluun bay cunaan bariis iyo hilib bay cunaan khudaar bay cunaan dad nool bay noqonayaan laakiin qofku markuu keligii yahay gaajo bay isku dili gastric baa ku dhacaya marka waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad kelinimadu waa kadeed waa in laga baxaa kelinimada bidillah azza wajal lamaana waa in la abuuraa lamaana waa in la samaystaa isku day keliga inaad guri degto isku day keliga inaad guri ku noolaato kelinimadu waa karaaho waa wax laga fiican yahay asallallahu jalla jalaaluhu ilaahay inuu dadkeena noo ilaaliyo ilaahay inuu usarkeena iyo qoysaskeena noo ilaaliyo dhalinyaradeenna ilaahay inuu guur wanaagsan iyo lamaana wanaagsan inuu ilaahay siiyo ayaan ilaahay weydiisanaa kelimadeena maanta kelinimadu waa kadeed علم القرآن الكريم في بيتك bishaaro bushoy haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku